Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan khiyaarta ku xiran janalkeena Expert Option Somali. Insha Allah caawa waxaan kaga hadli doonaa laba codsi oo inta badan dhalinyarta isu weydiiyaan. Labada codsi horta mid ka mid ah waxa weeyaan waxaa kalifay in ay dhalinyartii aysan fiidiyowga wada dhamaysanin, sidaa darteed ay maaragtay waxyaalo badan ay markaa fiidiyowga aysan ka fahmin. Dhalinyarta wiil ustaad baartuu soo duub su-aasha ugu badan ay soo weydiinayeen waxay ahayd ustaad sidee loogu xirayaa payment method ama card bank sidee loogu xirayaa. Waxaa u malaynayaa su-aashan inaan wax ka taabtay. Su-aasha labaad maaragtay ardayda soo weydiinayeen waxay tahay lacagta qaabkii maaragtay loo helayaa ama coinska qaabkii maaragtay markasta lagu celcelinayo ama wax limit la dhaho ma leeyahay. insha Allah halkan waxaan kaga bogaanaynaa maaragtay qaabka lacagta lagu siinayo pointska ama coinska isugu bedelayaan lacag. Su-aasha labaad iyadana aan ka dhigi doono second waxa weeyaan qaabkii aan uga jawaabi lahaa payment method ma lagu xiraa iyo xilligaa lagu xiri karayaa. Payment method haddii aadan fahmin waa card banki ama Daarsalaam ha ahaado ama IBS bank ha ahaado ama all of the card haddii doon Mastercard ha ahaado kaarkaada haystay adigoo international. Okay, marka cafwan yar la ahaado xoogaa yar baa jira. Fadlan hadda channelka cusub subscribe, like and share. Waxaan rajeynayaa 1 second baan ku sugayaa inaad subscribe and like isaar doontid haddii aad channelka cusub tahay. Bismillah, waxaan rajeynayaa inaad subscribe and like inoo saartay channelka. Haddii aan u gudbo applicationka waa kan aan inoo calaamadiyey soo claimay markaan soo guushid applicationka uu saan u soo kaco horta waxaad ku dhufanaysaa dashboardkaaga because of applicationka wuxuu kaga fiican yahay applicationada kale. Wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano dashboard. Haddii aad tid application dashboard lehna waxa weeyaan waa application for the real ah maaragtay la oran karayo applicationkaasi 100% waa real. Okay, application marka sida loo soo guda galo waxaa ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay dashboard. Dashboard markaan soo gudbatid waxaan ku dhufanaynaa meeshan ku qoran tahay earning. Earning markaan soo gudbano waa su-aasha koowaad iminka xalinayno kaliya toon waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay halkan wuxuu ku leeyahay haddii aad shaqaystid 100 point ama 100 coin waxaa loo bedelayaa 100 coin wuxuu noqonayaa $1. For example hadda maalinkii 500 shaqaystid oo pointi waa $5. Okay, applicationkan saan idin sheegay lacagta ugu yar ee lagala bixi karaa waa $25 iyo wixii ka badan. Okay, waxaa ku dhufanaysaa earning watch video. Markaan watch video ku dhufano waxaad daawanaysaa videogaas waxaa lagu siinayaa pointiyo ama coins waxa loo yaqaano kadib waxay isu bedelayaan lacag. Qaabkaas ayaana maaragtay lacagtaad shaqaystay aad ku qaadanaysaa faa'iidadaadana aysan marnaba muran kaaga gelin. Okay, markaan ku dhufanay watch video wuxuu inoo saarayaa 2 options oo Unity iyo Fiverr. Marka anigu inta badan Fiverr baan ku dhuftaa because of Fiverr wuxuu ku fiican yahay coinskiisana u yar fiican yihiin laakiin waa 2 option oo isla meeshii. Marka Fiverr saa ugu dhufatid wuxuu ku tijaabinayaa inaad robot tahay inaad qof bini'aadan tahay. Okay, I'm not robot la oranayna kadib su'aalo yar inuu weydiiyo ayaan u jawaabaynaa kadib waan verify gareynaynaa sidii caadiga ahayd. Okay, insha Allah waxaan isku soo noqonaynaa wax yar kadib markii aan soo verify gareeyo. Okay, hadda waxaan soo verify gareynay inaan wax robot ahayn. Kadib okay kadib markii aan soo galno waxayna leeyahay xoogaa yar baad sugaysaa kadib waad soo galay. Halkan waxaa ku arkaysaa in xayisiintu ay tahay 30 second 4 points aad ku qaadanaysid 30 second. Okay, waxaa odhanaa starting watching video. Markii aan start watch video ku dhufanana waxaa inoo soo baxaya video soconaya 30 second kadibna waxaan qaadanaynaa pointiyeedii oo diyaar ah.
waxaan rajeynayaa inaan qodobkaas isla fahmi doono haddii aynu maaragtay aad videoga ku ceshtid ood videoga si dhammaystiran u daawatid. insha allah waxaan soo qaadanay pointiyadani because maadaama videogii daawanay 30 sekin soconayay. waxaan rajeynayaa inaan midda isla fahnay. midda labaad oo waxay tahay su-aasha ugu badan oo dadka soo weydiinayaan, ustaad sidee lagu xiraa bank cardka? waxaa ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay billing oo kuu saaray. billing marka aad sidan ugu dhufatid waxaan sugaynaa in uu inoo soo saaro billing iyo xogta oo dhammaystiran. billing wuxuu inoo saaray hadda 51 senti markaan soo gelinay, iminkana waa 52 senti. saas ayaad ku wadaysaa ilaa aad ka gaaraysid lacagta xagga ku qoran cadadda oon idin saarayo baashaas waa $25. ninka akoonkana boqolkiiba 3 uu soo kacsan yahay. boqolkiiba boqol ayaa la rabaa si uu maaragtay $25 u gaaro. how to get by markaad xaggan ku aragtid waxaa weeyaan sidee wax loola bixi karaa lacagta markaa kusoo gasha. halka ay ku qoran tahay add a payment methodka. haddii aynu saan ugu dhufano wuxuu inoo sheegayaa in maaragtay transactionkeena ay ka dhiman tahay 97 boqolkiiba. si aad lacagta ula baxdidna waa inaad heshaa $25 iyo wixii ka badan. kadib xaggaas iminka madowga ah sida xagga manage systemka oo kale oo farteedu madowga tahay ayuu farman madow kuu saaray, wuxuuna ku oranayaa add a payment. markaad gaadhid $25 add a payment waxaa lagu fasaxayaa inaad ku dirtid payment card haddii aad haystid master card, visa card, allahumma mustacaan ABS Dar es Salaam kaararka international ka haddii aad haystid waa ku xiranaysaa. lacagtadana waxaa la baxaysaa si directly. insha allah waxaan rajeyn doonaa ilaa maalinka u dambeysa inaan idinla wado ilaa inta lacagta lagala baxayana aan aniguna dhankeyga ka shaqaysto videona kasoo duubo maalin walba marxaladda la marayo iyo heerka la marayo. insha allah waxaan rajeynayaa in maaragtay in aynu isla fahmi doono waxa meesha yaalla inay tahay lacag oo aysan ahayn wax dheedheela. lacag aad sintiyaal aad aruursayna oo aadan geedka uga soo wareegin oo aad adoo fadhiya aruurstayna maanta ma jirto wax ka habboon ama wax ka iisisan. waxaan rajeynayaa in maaragtay isku xirnaan doono. fadlan haddii aad channelka hosta subscribe like and share. groupkana telegramkana waxaan soo gelin doonaa descriptionka. waxaan rajeynayaa in xagga kaga soo biiri doonto groupkana telegramka wixii su-aalaad qabtidna aad commentiga ugu reebi doontid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.